xiriir jacayl ka dhaxeeyo waxaanay doonayeen inay ka mid noqdaan lamaanayaashii hore iskugu maamuusay buugga midabkiisu yahay casaanka ee loo magac baxay hadiyad jacayl waana munaasabad kale oo la mataana ah munaasabad hore uga dhacday magaalada Hargeysa kaasoo lagu daafuray toddobaadkii hore buuggani madasha oo bilowgii horeba lamaanayaashu ay u soo gaadhayeen si xigta ayaa waxa dhalinyarada iyo lamaanayaasha cawaysiinkani gaarka uu ahaa ku madadaalinayay suugaan kala duwan abwaan Cabdiraxiin Heelo abwaan Deeq Hoodaale iyo fanaanka caanka ah Mustafa Dollar jawiga goobtuna waxa uu ahaa sidani intaan mooday tawbir markaan tagay albaabkii ka waayay tuhurkii halkan tabaniyayo anoo taagan meeshii sawma maqal qof sii tagay dibdibtiya talaabada uma kicin turturmaray waxaan turunturoodo tafta ciidda geliyaba sawtaaj maxaalkii taaladaad ku noole toobiyuhu imuugeen ee allahayow nin taag daran aduunba wax tari kara adaadhay mani qalbiga dhayo dhabsii quruxdaada wayna dhaco midkuu dhigataan dunida dhalano qofkula dhaabaanan wali dhugane dhaabeel waxaad tahay dhammaystu maro xulbaad tahay dheer dhigaa sharafee dhaabeel waxaad tahay dhammaystu maro xulbaad tahay dheer dhigaa sharafee miyaan doorsanay qofku la dhigayaa furca qaali hablaheeda ninka loo qorehelaa furca qaali hablaheeda kaxariyo dhibaatiyo yan hubaa inuu dhaafi qayrkiisa lamaanayaal kala duwan oo isku hadiyadeynaya buugga hadiyad jacayl iyo kuwa iyagu ka duwan sidii hore iskugu maamuusaya buuggani ayaa madasha lagu arkayay intii ay socotay markii ay dhamaatay madashani ayaa waxaan wareysanay qoraaga buugga hadiyad jacayl Cabdisamad Awdaahir waxaanu ka waramay sida ay u dhacday munaasabadu runtii xafladan waxay daba socotay xaflada aan ku qabanay Hargeysa kowdii bishii labaad oo ahayd habeen sabti ay soo galeysay halkan waxaan ku qabanay 8 cisho ka bacdi aan Burcanimid runtii buuggan wuxuu noqday buug dadku ay xiiso gaar ah u qabaan siba ay lamaanayaashu ay tahay mid ay sugayeen oo laga maarmayo halkii ubaxa la gelinayeen buuggan dadku isku hadeedeeyaan marka Burcanu nimid iyadoo gobol kale soo dalbadeen oo ay damceen in buuggan loo keeno nasiib wanaag waqti wuxuu nagu sameeyay Burcanimaadno aan bandhig ku qabanno runtii caawa si macaan oo qurux badan bay muxuu ahaa ay reebra uga jawaabeen kalgacalka iyo jacaylka buugga ku dheehan si fiican oo kaliya laabay xafladna ugu qabsoontay lamaanayaashii kala duwanaa ee isku doosiyay hadiyad jacayl isla markaasina ku caweeyay munaasabadani ayaa dhankooda TV-ga Universal waraysiye kala duwan uu ka qaaday waxaanay dareenkooda ku cabireen sidani alxamdulillaah rabbil caalamiin caaw farxad gooni bay tahay xaaskaygii oo muddo hal sano iyo dhowr bilood aan qabay inaan caaw halkan ku wada caweyno oo aan guddoonsiiyo buugga hadiyad jacayl oo qof aan aad u jecelahay oo qof aan ixtiraam iyo qadarin u hayo mar walba waxaan ugu yeedhaa noloshaydii farxadaydii raaliyadeydii xaaskaygii quruxda badnayd iyada dunidaba ugu wanaagsan marka in jacaylka la kobciyo oo sare loo qaado waa soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay aad baan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo buuggan hadiyad jacayl ma qiyaasi karo dareenkayga aad baan faraxsanahay waxaan farxad aan inaba caadi ahayn oo aad u sareysa aan la wadaagayaa xaaskayga iyo marwadeedan aad ka jecelahay anagoo ka soo qayb galay bandhiga buugga aadka u qiimaha badan ee la magac baxay hadiyad jacayl runtii anigiyo gacalada aan aad u jecelahay waxay noo tahay dareen gaara inaanu halkan kula qaadano ninka dhalinyarada ah ee qoray buuggan waxayna tani noo muujinaysaa dhiirigelinna noogu tahay sidii jacaylkii aanu annagoo dhalinyaro muddo soo wadnay aanu ka midho dhalinay maasha allah si guulana noogu midho dhalay inaanu haddana halkii ka sii wadno oo sii 2 jibaarno sii 3 jibaarno sii 4 jibaarno buuggan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa si weyn loogu hadalhayay baraha ay bulshadu ku kulmaan waa Idris Bershiya iyo Aamin Maxamed telefishinka Universal Burco.